بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada muuqaalkan oo aan rabo inaan kaga hadlo arrin la yaab leh oo soo kordhay oo ku saabsan xanuunka ama cudurka koronaha ilaahay haynaga hayo arrintan waxa weeye waa cilmi baadhis ay sameeyeen hay'ad la dhaho magaceeda National Institute for Health Research waa hay'adda qaranka ee cilmi baadhista caafimaadka diraasaadka caafimaadka samaysay dalka Ingiriiska ayaa waxay samaysay diraasad ama markaa cilmi baadhis ay ku wareysatay in ka badan 400,000 oo qof dabadeedna waxa uu soo baxday in dadka qunyar u socda ama si tartiiba u socda ay halis badan ugu jiraan inuu ku dhaco ama uu asiibo xanuunka corona subhanallah marka la barbar dhigo qofka socodkiisa ama talaabadiisa talaabo dheereeya ee si xawaare fiican ku socda waxa ay sheegaysaa diraasadani in qofka qunyar u socda uu afar jeer ama afar jibaar uu uga halis badan yahay qofka xawaaraha fiican ku socda ama si xooga u socda taas oo macnaheedu ay tahay haddaad rabtaan in xanuunkan ilaahay baa qadare haddii aad rabtid inaad iska ilaaliso xanuunkii wuxuu noqday mid laga cararay ka cararay wey xanuunkii wuxuu noqday sida ay sheegaysa diraasadaas oo diraasad caalamiya oo lagu kalsoon yahay in laga cararo oo qofkii uu socodkiisii iyo talaabadiisii uu talaabo dheereeyo waliba waxay sheegayaan qofka gaabinaya qasab ma aha inuu yahay qof marka waxa weeyaan overweight ama miisaankiisu uu culus yahay oo buuran oo cayilan xataa qofka caadiga ah ee miisaankiisu uu caadiga yahay hase ahaatee gaabinaya xagga socodka gaabinaya halista xanuunka koronaha ayaa maaragtay inuu ku dhaco ayaa saayidaya 4 jeer in ka badan qofka socodkiisu uu dheereeyo waxay sheegayaan cilmi baadhistaasi qofka caadiga ah wuxuu socdaa halkii saac 6 kilomitir ilaa 7 kilomitir inta u dhaxaysa ayuu qofka caadiga lugeeya maaragtay xawaaraha fiican ku soconaya balse qofka gaabiska ah ee qunyar u soconaya hal saac wuxuu ku jarayaa 4 kilo iyo ilaa 5 kilo inta u dhaxaysa taasoo macnaheedu ay tahay haddii 5 kilo aad ka hooseyso socodkaagu saacadii aad inta ka hooseyso qofkaasi qunyar buu u soconaya haddii aad ka sareysana waa xawaarihii normalka ahaa ama caadiga ahaa ala kulli xaal isku soo wada tuubo sida ay sheegaysa hay'adan oo warbaahinta oo dhan maaragtay dunida oo dhan lagu baahiyay sidoo kale waxa ay tilmaamaysaa in koronaha laga ordo oo laga cararo oo aan gaabis iyo caajis iyo wahsi loo baahnayn ee la talaabo dheereeyo oo la socdo arrintaasna waxa weeyaan inuu qofku socodkiisa uu si fiican u socdo si xoog leh uu u socdo qofkii dee bukaana uu kama warramay laakiin qofkii caadiga ah ee gaabinaya baa laga sheekeynayaa haddaan rabno inaynu ku dayano rasuulka sallallahu alayhi wasallam waynaan isweydiinaa nebiga horta siduu u socon jiray sallallahu alayhi wasallam axaadiista saxiixa ah waxay tilmaamayaan gaar ahaan sunan tirmidhi imaam tirmidhi sunankiisa waxa ku yaala inuu nebigu markuu socon jiray alayhi salaatu wasalaam uu socon jiray si xoogan oo maaragtay qawiya oo ay ku tilmaameen saxaabadu in uu la moodi jiray inuu meel taaga ah ama meel buur ah uu ka soo daadegaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiis kale oo isla imaam tirmidhi sunankiisa ku soo saaray waxa ay tilmaamayaan saxaabigaasi in nebigu alayhi salaatu wasalaam uu dheereyn jiray xagga socodka markuu soconayo oo uu dhihi jiray waanu xiiqi jirnay markaanu la soconno ama waanu daali jirnay oo nebiguna alayhi salaatu wasalaam waxaad moodaa in dhulka loo soo duubayo buu ku leeyahay in dhulkii loo soo duubayo oo aanu isagu isdhibaynin isagu isma dhibayo haddana wuu dheeraynayaa marka waxay tilmaamaysaa axaadiista oo dhan tilmaamaysa qaabkii iyo sifadii ama tilmaantii nebigu marka uu maaragtay soconayo siduu u socon jiray waxay sheegaysaa dhammaantood inuu nebigu u socon jiray si xoogan oo qawiya oo markaa waxa weeyaan aanu ku jirin caajis iyo wahsi socodkiisu uu ahaa socod xawaaro wanaagsan ku soconaya
haddaba waxaynu ka qaadanaynaa arrintaa walaalayaal in aynu socodkeenu uu noqdo mid maaragtay fiican oo xoogan inagoo kaga dayanayna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka hor intaan cilmi baadhistanba aynan maaragtay dabaqin waa inaan marka hore ku dabaqnaa oo dhaqan gelinaa sunnada rasuulka oo caajis iyo wahsi looma baahna ogsoonow waxaa kaloo arrintani ay tilmaamaysaa muhiimadda iyo ahmiyadda uu leedahay jimicsiga ama waxaa la yidhaha training ama qofki inuu jimicsado jidhkiisii uu ka shaqeeyay caafimaadkiisii taasna diintu way kugu dhiiri gelinaysaa weliba waxaa jirta sports ama cayaaro islaamic ah oo waxa weeye haddaad la timaado adigoo ku dayanaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam aada ajar iyo khayr ku helaysaa hadda waad cayaaraysaa waad boodboodaysaa waad ordaysaa haddana waxaad helaysaa ajar iyo khayr niyadaada ayuunbaad gelinaysaa inaad kaga dayato rasuulka calayhi salaatu wasalaam sportiskaas ama cayaaraha waxaa ka mid a orodkana waxaynu ogsoonahay inuu yahay sports la sameeyo ama cayaar la sameeyo kuwa ugu wanaagsan ee jidhka aadamaha meel walba markaa maaragtay meel walba training iyo jimicsi ku sameynaya hadday wadnaha tahay iyo hadday sanbabada tahay iyo beerka iyo keliyaha iyo jidhkan oogada sare oo dhan waxa weeyaan wuxuu ku sameynayaa jimicsi wanaagsan marka nebigu u ordi jiray waa kii xadiiskii caaisha nebigu la orday caaisha calayhi salaatu wasalaam ee la baratami jiray waxaa kaloo ka mid a dabaasha oo diintu ay inoo tilmaamtay sidii cumar ibnu khataab uu lahaa callimuu sibyaanakum sibaaxa caruurta ha la baro ama ilmihiina bara dabaasha marka arrintaa dabaasha sayid cumar ayaa tilmaamay axaadiis kaloo nebigu u nisbaynaysana way jiraan inuu hadalka nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyo dabaasha uu ku dhiirigeliya ummadiisa sala allahu calayhi wasalam taasi waxay inoo caddaynaysaa oo inoo sheegaysaa walaalayaal ahmiyadda iyo muhiimadda jimicsiga iyo orodka iyo dabaasha iyo inay ka qayb qaadanayaan ilaalinta jidhkaaga iyo inay ka ilaalinayaan cudurrada wareegaya masaa'ibtan iyo in caafimaadkaaga ay sare u qaadayaan inahaasan muuqaalkeenan kusoo koobaynaa insha allahu tacaala waxaa inoo ballama in laga cararo koroonaha assalaamu calaykum waraxmat ullah